السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بشوينت الصوماليات وإذ السلام وهذا لما أنا عندها لا وإذ الله قلبوا عنا وناكسن إن شاء الله بإذن الله الكريم. قلبت حلقة حد يكسر بنت دونا سيدا قبلها نافذها وحقوق بصدان قارهان قبلها رك نافذك إن شاء الله برتنا حكوسة من دونا درب عليك النقطة صبايد إن شاء الله مركا كسر وهذا دي لها قدره. الحلقة وحيتها على اسم قرة حلقة وحيتها على ملحدي أنا بعصر قلبي سير تقانين الصبح يروح كحشان دونا يبيه قندعها إن شاء الله حكوا بلا بين عمي لحدي كدر صدا هذا وان كدر صدا ملحدي إن شاء الله حكوا حسين دونا ناس قرير كدر صدا درب عليك النقطة وحل بانا جم قاعدة إذا نوجا مهمسن إن أنا قياسنا سنكرتنا waan ku daray insha Allah waxaan ku dari doonaa horta intaan isku yara dhex gelin doonaa hadii Ilaahay qadaro bacda waxaan ku darsan doonaa subaga insha Allah subag wuxuu iga dhigayaa wax aad u jilicsan oo softiya hadana way fududaanaysaa inaan kala bixiyaan faan xasho subagan marka hore saa ugu xashiyaa إن شاء الله حنصير نسوي بالبرية إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنكش هنا يا بيه قنطعها سنة كحشته نصاد يا أرصدي إن شاء الله يدينك عركة صاصة دي لها قدره يا رب يرسنا يا بيها ساسادي لها قدران نسوي حشية إن شاء الله اسكسر نقد وناكسن ولكن سوي حشو اسكسر لعبنا ولا الله وينك اسكسر لعبنا وأنا سوي حشي مركوا أردت صدر الصاف تقول وش لعسني هاي بركي صبايتي بعدين إن شاء الله هدي ربنا لك النقد وانشدين دونا إن شاء الله تعال شو عنا وناكسن رقع أنتنا سيدنا إياه كتبنا قياسته أيام المرة والبقع مها ما أركتيش بدنا في السويدين ده صبايات بيكبروا كشكلنا صح مسكين تو واحد وحنا عشرين صح إن شاء الله أنا دلوا وداك بدي ربطها لك النقطة إن شاء الله مركز ساعة سميري بدي ربطها لك النقطة وحنا سليد البرد كذا تعصن أنا إن شاء الله كل يوم بساق بسان كذا تعصن يا إن شاء الله صدق صلي بالله طوبة بس والكلام أيها إن شاء الله أوصل طوبة بسم الله
wixii ka soo baxana waan ka wada soconayna insha allah. Bismillah. asxaabta waan aniga soo laabtay insha allah biidnillaahi kariim. haddana waan googoosan doonaa. Bismillah. gacantadan ku qiyaasaya. saasaan usoo wada googoyn doonaa insha allah. isku soo laabanayna walaalaha waan aniga soo laabtay. idinkaa arka siduu maaragtay sabaayada burka iskugu kay dhacay. marka insha allah biidnillaahi kariim hadda waan bilaabanaynaa. marka koowaad gacanteedan saa ugu fidsanaya insha allah. meeshana saliid yar baan marsaday. annaga gacanteeda wax walba nooga fiican. anigaa fidiyey insha allah. baashan fidinta hal mar la saaran doona hadii ilaahay qadaro. insha allah kaasaa birdaawaha hadii ilaahay qadaro shidan doona. isku soo laabanayna insha allah. birdaawi waan diirsaday. hadda waan saari doona hadii ilaahay qadaro. la socod wanaagsan insha allah. birdaawada waa kan insha allah. saasana ku kala baxsan doonaa. insha allah. hadda waxaan ku dari doonaa saliidii. bismillah. adiga arkasay usoo booday. walaalaha waa kan waan soo rogay. marka insha allah hadda waan ka qaadi doonaa. dhan walba waan u rogay. insha allah waan ku dejinaya. waan soo dhamaystiraya hadii rabbi raali ka noqdo. insha allah aniga hadda waan ka qaadaya hadii rabbi raali ka noqdo. saxankiina bartana iigu diyaarsan yahay. walaalaha insha allah waa kaa. anigu uma baahni inaan qori ku fidiyo gacantayda maadaama si fiican u xashtay. waa igu filan. kadibna insha allah biidnillaahi kariim waan ku ridi doonaa. isku soo laabanaynaa. waxaan isleeyahay waqtigu badan dadku waa intaasoo dhan wada daawan karaa. waxaa isku soo laabana walaalaha anigan soo laabtay. guntii gabagabadii baynu ku dhownahay. insha allah waxaan idinku yara celinayaa saan u fidsanayo. inaanu gacanteeda ku fidsanayo. inaan u baahnayn inaan tibtaa ku fidsado. allah waa kaa. gabdhaha kale la midka aragga naafada kaan waxaa rajeynaya
inay sidaan gacanteeda ugu fidsadaan ay ka maarmaan tibta lagu fidinayo sabaayadda insha allah. ka walaalaha haddana waan qaadi waxaan saari doonaa gardaawiyan la maqliyo kabasa loo yaqaano. bismillah waxaan saaray insha allah isku soo laabanayna ilaaha qadar. walaalaha waanigan waan soo dhameeyey insha allah idinka arka. waxaan halkan uga soo jeedinaya wacyigelin dhammaan gabdhaha la midka naafada ah, khaasatan gabdhaha aragga naafada ka oo leeyahay fadhiga ka kaca wax kasta oo qabsan kartaan. muhiimaddu waa inaad muxuu ahaayey adigu aad istirtid ood maskaxdaada gelisay inaad wax kasta qabsan kartid. bulshada kalena daawanaysa lixaadkooga qabtana waxaanu leenahay waa xaggii walaalkay maxamed cabdi wabaxe noola idinla mid iyo naafada dad weeyaan. ogaadeen dadka naafada ay wax qabsan karaan. dad badan ayaa maaragtay fikirkooda aaminsan inaanay gabadha hadday naafoodaan waxba qabsan karin, in suuliga loo kaxeeyo, cuntada fadhiga loogu keeno. marka waxa waa laga baxay waqti casriya baa la joogaa. qof walbana ilaahay awood buu siiyey